nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiya walaalayaalo hurdaayo toos Soomaalay toos nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiya walaalayaalo hurdaayo toos Soomaalay toos بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود أمريكا سودانية أذكر جوتا كسر دواد تي في الصومالي channel استوديو سوكولة مقالة نيروبي برنامج كده وبرنامج كده دنيا تضوات كيف هالجرين كي ما جري استوديو لبعض تي في كلها مقالة نيروبي برنامج كده دنيا تضوات كانوا حوالي دونا دنيا كوسا وسن مندورية دبعتوا كواه دنيا الصومالية برنامج كنا يا تضوات كواحنا قلت بكل دونا لبعض تيم أولي يرادو ودني يسمدون waxaa barnaamijkaas ku soo dabariday oo gacan weyn ka geystay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed Nabadoon Youth Alliance waxaa martay inuu waa sidoo kale wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dawladda ku meegaarka ee Soomaaliya Ismaaciil Hore Buuba oo hadda ah siyaasi caan ah oo ka dhex muuqda siyaasadda dalka Soomaaliya ee ugu horreyn waxaan jeclaan lahayn intaan barnaamijka aan guda gelin inaan ku daafurno Ismaaciil Hore Buuba oo ku baraarujiyo dhibaatada maandooriyaha ay ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii ugu bixi lahaayeen Ismaaciil ku soo dhawaad ugu horreyn barnaamijka waxaa sharafi ah in hadii maanta dhalinyarada halkan isugu timid ay ugu casuntay inaan bal idin daahfuro arrintan maanta ka hadlaysaan ee maandooriyaha saynu ogsoonahay waxaan la yiraahdaa maandooriyuhu waxa weeyaan wax kasta oo qofka bini aadamka ah kaskiisii saxa ahaa wax ku sameeya oo dabeedna hadilmay hoos u dhiga dhimana haddaynu u fiirsano dhaqankeena waxyaalaha hadilmay muxuu ahaa ugu faraha badan ee kolka qof la doonayo in hadilmay la yiraahdo meel xun ka dhac amba hadilmay habaalka waxaan la isku yahay alla ku doori qof alla dooriye to waxa weeye qof hagaagsan ma akhlaaqdiisu ma hagaagsana dhaqankiisu ma hagaagsana waxa weeyaan wax qof kastaba oo hadii ma ka ducaysto inaanu noqon qofku ilaahay u ducaysto alla ku doori maan doorisna waxa weeyaan hadii maankii ilaahay ku sameeyay aqliga alla ku sameeyay xiski alla ku sameeyay oo hadii muxuu ahaa wax noqday oo qof aan kolkaas hadii muxuu ahaa wixii looga baahnaa aan hadii qaban karayn saynu ogsoonahay mujtamacaadka ama bulshooyinka kala duwan caalamka ku nool cid walba waxa jira nooc maandooriye ah oo laga yaabo inuu dhaqanka ummadda ku jiro in kolku qofku doonayo inuu xoogaa ka yara baxo sidii caadiga ahaa oo iska yara hadii muxuu ahaa si kala yara noqdo amba is-illow siiyo amba dhibaato ha noqoto amba wax kalaba ha noqdeene ay hadilmay qaataan dhaqankeena waynu ogsoonahay maandooriyaha ugu caansan waxa weeyaan waa qaadka laakiinse maandooriyaal ka sii khatarsanna waa jiraan oo khamriga ka mid ah saynu ogsoonahay ilaahay bini aadamka wuxuu uga mamnuucay khamriga waxa weeyaan dhibaatada xoog leh oo ku sameeyay waxa ugu daran oo khamrigu ku sameeyaa waxa weeyaan cibaadadii ilaahay ayuu hadilmay qofkii ka fogeeya halka maandooriyaha hadda dhinac ka eegto in kasto bulshooyinka badidooda uu ku jiro nooc maandooriya ah oo bulsho waliba ay hadilmay u taqaano wax hadilmay dhaqan ahaan la iska isticmaalo laakiin se haddana maandooriyo
waxa weeyaan de taas ilaahay hadilmiye muxuu ahaa inoo tilmaamay uu yidhi ka fogaada khamriga ilaahay wuxuu ina yidhi ka fogaada waayo waa maandooriya haddii la yidhi khamriga ka fogaada de waxa weeyaan oo waxa looga fogaadayna maankii uu doorinaya inuu yahay waxa la yaala wixii kale maanka doorinayana iyadana sidaas oo kale ayay diinteenu ina faraysaa in laga fogaado shakhsiyan aniga waxay la tahay kolkay noqoto xagga diinta qaadka iyo khamriga waxa u dhaxeeya wax sidaas ma aha waa isku mid waayo khamriga laga yaabaa in hadilmay maandoorinimadu kugu reeba ay hadilmay mid sirinsilqo oo nacasnimo xun leh oo qofkii hadilmay muxuu ahaa wax kasta iska qasto oo wax aan hadilmay muxuu ahaa dalaaq oo ahayn inuu ku kaco ayaa laga yaabaa wax laga yaabaa qaadku inuu hadilmay ka yara duwan laakiinse kolkaad qaadka in badan aad ka cunto isaguna sidaas oo kale ayuu hadilmay la imanaya wahsiga diintu la imanaya oo salaadii waa ka fogeynaya cibaadadii waa ka fogeynaya adiga iyo dadka isugu dhowdihiin cid وصاحبته التي تؤوي أيها هديل محاها قفك حاس كاغا هذه قفك الدمر إلهي هديل محاها تسكين هديل محاها راعيي وقفك أدو هو ينيسو أدو قلمونس إذا هديل محاها وإذن كالفقينية هديل محاها قاتكو كل كاس وحي قرآنك وكوشي خمرية aniga waxay la tahay inaan qaadkuna inuu la mid yahay dhibaato weyn mujtamaceena ayuu qaadku ku hayaa waxaynu ogsoonahay waqtiga la shaqeeyo dawladda kolka loo fiirsado haddaad Hargeysa tagto haddaad Jigjiga tagto haddaad Xamar tagto haddaad Sielo tagto waqtigii dadku shaqeyn jiray 12 hadday kolba gaadho waxa weeyaan dadka badidiisu wuu ka soo ordayaa shaqadii haddaba shaqadii ahayd ilaa 4 galabnimo in lagu Allah kolka waxa weeyaan mujtamac ahaan qaadku waxa ugu xun dadka Soomaalida hadilmay ku reeba waxa weeyaan horta wax kale bay iska daayo ummadii waxay ummad ku noqotaa inta saacadood ee qofku uu isku hawliyo inuu hadilmay wax produce gareeyo inuu wax soo saaro inuu shaqo qabto dadka qaadka cuna kolkaad u fiirsato amba qaadku dhaqan ahaan inta saacadood sidaynu u cunno inta saacadooda la fadhiyaa inkastoo dhinacan Kenya uu ka yar duwan yahay oo qofku jeebka bahalka waa la iskaga qaataa hadilmay maxaa halkan laakiin meelaha jira ay ceeb tahay in qaadka jeebka lagu qaato oo inay la fadhiistaa ay tahay saacado fara badan ayay dabeedna ku khasabtaa qofkaasi inuu hadilmay u fadhiyo qaadka mujtamac ahaan amba bulsho ahaan bulshooyinku waxay isku dhaafaan laba wax bulsho walba qofka shaqeeya 24 saacadood intuu wax produce gareeyo intuu hadilmay wax soo saaro oo shaqo ku hawlan yahay wax qabanayo waa hadilmay waxa indicators waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu eego mujtamacaasi sidoo hadilmay wax soo saaro talabaad waxa weeyaan waxa uu soo saaray oo ka helay hadilmay dakhilka waxa isu rogaysaa lacag bay isu rogaysaa maadad bay isu rogaysaa wax shaqadii hadilmay muxuu ka soo baxay wuxuu isticmaalo mooyee wuxuu u dhigto birito waa savings ka waxa la yiraahdo haddaad u fiirsato mujtamaca Soomaalida qaadku dhibaatada weyn ku haya waxa weeyaan labadii halbowle ee mujtamacu
ay lagu eegayay siduu hadilmay hore ugu socon karo waxa weeyaan wuxuu inta saacadu shaqayn karo taa waqtigu ka dhigaya maxaa ka sii daran wixii uu soo saaray qofka qaadka cunaa kolkaasba hadilmay maxaa intaanu cuntaba u jeesan de wuxuu hadilmay lacagtii degdeg buu isticmaalaya savings waxa la yiraahdo ma dhacayso kolka iqtisaadkii wadanka maxay ku sameynaysaa aad iyo aad bay u dhaawacaysaa waa laba wax oo kolka la isu geeyo 1 and 2 aad isu geysa labadaas aad ogaanaysa mujtamacaas inuu khatar ku jiro maxaa kale hadilmay maxaa oo dhibaato leeyahay dhibaatadu leeyahay qaadka waynu ogsoonahay maskaxda meelaha oo hadilmay muxuu ahaa ambaba seexiyo ambaba dooriyo ambaba hadilmay fad ku yeesho waa meelaha ugu muhiimsan maskaxda bini aadamka maxaa ka dhashay kolkaas qofku kolka maskaxdiisa qaybtaas hadilmay ku shaqo qaadku hadilmay seexiyo ambaba hadilmay oo ifadgareeyo loo fiirsado waxa ku dhaca waxa afka hadilmay dadkan darsa psychology-ga amba cilmiga hadilmay cilmi nafs waxa la yiraahdo wuxuu ku sameeyaa wiswis hallucination qofkii waxbuu khayaal waxaan jirin mala awaal buu samaysanaya wuxuu oranayaa halkan baa laga soo gelaya qof caadi ah oo waxba u geysan ayuu ka dhiganayaa inuu yahay hadilmay muxuu ahaa cadowga ugu xun dhibaatada in la haysata maanta Soomaali hadaynu nahay ee ah dadkeenan hadilmay uu ka dhaxeeyo conflict iyo laynta iyo dilka hadilmay muxuu ahaa qayb weyn ayuu qaadku ka ciyaara waayo qofkii wuxuu u sawiraa wax aan jirin wuxuu u sameeyaa cadow aan jirin qofkii ugu dhawaad dadka ayuu oranayaa waa ku cadow kolku hadilmay muxuu ahaa gaaro heer gaaro oo saddexda la isu geeyo wax iyada oo production-kii lagu qiyaasayay ummaddu waxay soo saari karto iyo quwadeedu waxay tahay hoos u dhigaya iyada oo hadilmay savings-ka wixii la yiraahdo ummadaasi wixii ay soo saarto intay hadilmay kaydsan karto hoos u dhigaya isagoo dadka bulshada wada noolaan lahaa dhexdooda dhigaya cadaawad iyo kala shaki keenaya maxay in la israayo kolkaas arrimahaas oo dhan ayaa maandooriyaha inuu inaku bulsho ahaan aad iyo aad u isticmaalaa oo hadilmay la yimaada waxaan hubaa in arrimaha inta hadilmay ka sii durkasan doontaan oo aad u falanqaysan doontaan laakiinse arrinta aan idinku baraarujinayo waxa weeye maandooriyaha qaadka la yiraahdaa runtii mujtamaceena wuxuu hadilmay ku hayaa dhibaato weyn khaasatan dadku dhibaatada ku hayaan waa dhalinyarada haddaad u fiirsato caalamka dadka Soomaalidu sidoo Ilaahay u dhisay waa dad haddii ay isticmaalaan jirkooda xagga sportska aad ugu wanaagsanaan kara ma aha dad aad u gaagaaban dad aad u dhaadheer ma aha dad aad u burburan ma aha Ilaahay hadilmay muxuu ahaa si wasat ah ayuu jirka bini aadamka u sameeyay laakiinse bal u fiirsada sportska dunida laga ciyaaro xagaynu kaga jiraa kubad waxyaalaha kale sportska wada jira waayo dhalinyaradii Soomaalidu waqtigii ay ahayd jirkooda inay u diyaariyaan arrimahaas ayaa hadilmay muxuu qaadku soo gelaya waayo kolku qofku hadilmay 12 jir yahay nin qof in walba wuxuu doonayaa inuu iska dhigo nin weyn inuu noqday ninka weyn muxuu sameeyay dawaqayla dadna meel buu soo fadhiistaa hablihii baa xitaa oranaya kaas macna ma laha maba fadhiistay maba qayle muxuu yahay kolkaas
dhibaato culus ayuu culus buu ku hayaa haddii muxuu ahaa bulshadeenna khaasatan dhalinyarada inay iska waanisaan inay isku daydaan ina haddii muxuu ahaa wax kale u dhaqaaqdaan oo iska ilaalisaan aafadaas ayaan idinkula talinayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ay u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Ismaaciil Hore Buuba oo barnaamijka dhalinyarada maanta marti inoogu ahaa. waxaan geli doonaa doodeena oo waxa ka qayb qaadan doona laba group waa Samadoon iyo Wadani. barnaamijkan waxaa isku soo dabariday ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Nabadoon Youth Alliance waxa marti inoogu ah dhalinyaro aad u fara badan oo ka kala timid qaybaha kala duwan ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxaa jiri doona gurdi garsooryaal ah oo dhibcaha sii doona groupkii guuleysta. doodan wuxuu ku saabsanaa doontaa dood cilmiyeedkan maandooriyaha waxa uu hadli doona dhibaatooyinka maandooriyaha oo ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed. barnaamijkan wuxuu socon doonaa haddii Ilaahay idmo ilaa iyo 4 isbuuc waxaana ku tartami doonaa gruubyo kala duwan oo kala yihiin labada gruub hadeertaan oo fadhiya ay kamid yihiin Samadoon iyo Wadani. Golden iskaashato ayagana foodo isku soo haya kadibna waa arki doonaa barnaamijka meesha uu ku dhamaado. waxaan jeclaan lahayn daawadayaasha muxuu ahaa ayagana u sii tabi doonaa. waxaan jeclaan lahayn inaan su'aalaha hore u galno aan ku bilowno gruubka Wadani. maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku kalifaynaysa maalan maandooriyaha؟ السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين دلنيرada meesha ka soo qayb gashay waan idin salaamaya si kal iyo laab ah. hadafka iyagu horta hal mid weeyaan yeenan oran hadii uu groupkan raayo amba kan laga raayo amba kan uu raayo waxa weeyaan kan waa laga guuleystin tal dhaca caadifadii aysan qaarka iyaga qaadin. hadafka iyagu waxa weeyaan in message-ka sida aan rabno uu noogu gudbo oo kaliya. aan u soo laabto jawaabta su'aashayda. waxaad weydiisay sida waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ku kalifay inay isticmaalaan maandooriyaha. waxa ku kalifa horta waxyaabo badan oo isbiirsaday. waxa kamid ah nabadgelyo la'aan. kadib markii wadanka ay dagaalo ka dhaceen rabshadihii ay bateen colaadihii ay sii siyaadeen dhalinyarada si ay isu hilmaansiyaan cabsida dagaaladaasi iyo xabadahaasi dhacayo darteed way u isticmaaleen. qodobka labaad waxbarasho la'aan ayaa ku kalifaysan dhihi karaa. kadib markii meesha ay ka baxday dawladii dhexe ee Soomaaliya dhalinyaradu waxay waayeen fursado waxbarasho oo bilaash ah ilaa iyo heer dugsi sare ma haystaan ilaa iyo dugsiga hoose. bayskooda waxbarashada markii uu dhismi waayay kadib qofka bini aadamka hadii uu waxbarasho waayo uu isla hadlayaa uu mashquulayaa uu problemaya. that is why ay hadana ay u isticmaali karaan aan leeyahay maandooriyaha. qodobka saddexaad oo aan jeclahay inaan sheego waxay tahay shaqo la'aan. qofka mar hadii uu dhalinyaro yahay hadana uusan shaqo haynin waxa weeyaan shaqo la'aanta waxay u keenaysaa problems badan oo in la xaliyo u baahan. kadib waxa macquul ah in qofkaasi uu ku dhiirado inuu isticmaalo maandooriyaha. intaasan ku soo koob aad ayaa u mahadsantahay. waxaan jeclaan dhanka Samadoon inaan u gudubno. miyaa la oran karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa maandooriyaha ku kalifa dhaqaale la'aan? miyaa la oran karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku kalifa maandooriyaha dhaqaale la'aan؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horreyn magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Cilmi. dhaqaale la'aan kuma isa kalafin sababtoo ah maandooriyaha asaga dhaqaale u baahan. marka dhaqaale la'aan ku kalif karto waxyaalo kale ku kalifana waa waxyaalo badan oo isbiirsaday oo isku tagay. waxa koow ka ah qofka maandooriyaha cunaya inuu saaxiibadiis ay yihiin dad maandooriyaha isticmaala. marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dariska diinta ku yeel. waxa ku qasbantaa saaxiibka wuxuu sameeyo inaad sameeysid ku daysatid. waa qodobkayga koobaad. qodobkayga labaad waxa ku kalifay jaahilnimo. qofkii ma yaqaano maandooriyo dhibka uu leeyahay. wuxuu arkay dadka waaweynaa cunayaan. wuxuu arkay dadka akhyaarta loo yaqaano cunayaan. marka wuxuu yiraahdaa akhyaar noqotid soo kale walaalkaa kale noqotid oo dadka waaweynaaba way cunaane.
marka mana u yaqaano ishaag dhibka uu leeyahay maandooriyaha uu keenayo waa qodobkayga labaad qodobka saddexaad waxaa ku kalifo ka mid ah waalidiinta waxay siinayaan dhalinyarada lacag aysan ogeyn waxay ku samaynayaan wax ma barto qofkan wax kale laguma dhiibin lacagaa la siiyey lacagtii lama kontaroolin waxay tahay wuxuu ku samayn doona ilmihiisa wuxuu ku gadanayaa maandooriye ilmihii jaaduu kala baxayaa sigaaruu kala baxayaa xashiishuu kala baxayaa qamruu ku cabayaa waxyaalo badan oo maandooriye wax yar ma aha waa badan yihiin laakiin soomaalida waxay ka yaqaanaan jaadka iyo ishaag iyo xashiiska iyo sigaarka iyo waxaa kaloo ku kalif waxaa arkaysaa oo kale qodobkayga afraad waxaa kaloo ku arkaysaa qof loo soo dhiibay lacagtii iskuulka la yidhi iskuulu dhigtaa la lacagta soo bixi iskuulka ma la dabagelin inuu iskuulka lacagtii dhiibay in kale lama ogaanin asna wuxuu kala baxayaa maandooriye waxaa ku kalifoo kale waxaa kaloo ku kalifay qofka dad waxa jiraan u maleeyaa waxa maandooriyaha ah u maleeyaan inay wax fiican yihiin ooba ka aaminsanaynba maandooriye amba ka dhaadhacsanayn inuu wax fiican yahay inuu wax xun yahay wuxuu maleeyay wax fiican dadkii oo dhan ku wada arkay wax fiican buu maleeyay asbuuna isticmaalay soo u noqdo waxa arkaysaa dhalinyaro waxa arkaysaa markay jaadka cunayaan balaay iska dhigayaan in adiga ka fiican yahay amal hadaa la hadasho isla ka weyn yahay dadka in la fariisto ma ogola hadalka xataa hadaa la hadasho waran waa kugu canaada hadalku kugu canaada oo iskala ka fiican yahay wuxuu isleeyahay maxaa waa reebaadiyahan maanta ku dhigta maxaa waaye hadaa dhadaniyo ma ila hadashid niyo marqaanka naga jeerno ku dhaaniya waa qaldanto waxaan lacag ma ugu soo qaato ku dhaha marka dhalinyarada badankooda waxa ku kalifay wixii aqoon u lahayn wuxuu yahay inuu wax fiican yahay iyo inuu wax xun yahay intaas ku soo koobay aad ayaa umahadsan tahay weli waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkiiba hal jeer kaga imaan jiray stuudiga labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka waxaa noo jooga oo laba garsoorayaal oo sheegi doona kooxdii dhibcaha badan keenta waxaana xusid mudan in labadaasi garsoore loo xuso waa Cabdiqaadir Shariif iyo Burhaan Iimaan oo fadhiya dhankayga bidix haddii aan dhanka wadani aan u soo laabto maxaa ka mid ah khasaaraha oo nafta qofka isticmaal u geysto maandooriyaha qasaaraha qofka isticmaala maandooriyaha uu naftiisa u geeyo wuu badan yahay waxaa ka mid ah mushkilada jinsiyadeed ama sexual problems waxa loo yaqaano ama in qofka isticmaalaba jir ahaan uu bedelmo oo maandooriyaha uu qayirmo jirkiisa qofka isticmaalayo waxaa ka mid ah caafimaad darro sida inuu qofka uu ku dhaco wadna garaac ama wadna xanuun fara badan cudurrada la xiriiro neef mareenka iyo wareegga dhiigga inuu ku dhaco halis bay u tahay waxaa ka mid ah cudurrada ama caafimaad darrada uu u geysanayo maandooriyaha qofka isticmaala jirkiisa waxa loo yaqaano birth defect ama cudurrada la xiriira abuurista ilmaha gaar ahaan hooyada cabta sigaarka ilmaheeda waxa ku imaan karo waxaa ka mid ah tabardaro xagga galmoodka ama impotence waxa loo yaqaano qofba sidoo u yaqaano ama madhalayska waxa la yiraahdo inta badan maandooriyaha wuu sababaa hurdo la'aan oo kale qofka waa ay ku dhacaysaa garaadka qofka howlgalnimo ku imaanayso in qofkaasi garaadkiisa wax u dhinmo ama uu hoos u dhaco garaadka qofka waxaa kaleeto oo ka mid ah in qofka ogaansho la'aan wax la yiraahdo ay ku timaado xilliga uu maandooriyaha isticmaalayo waxa uu sameeyo ama waxa soo gaarayo jirkiisa aanu ka warqabin intaasaan kusoo koobaya aad ayaa u mahadsan tahay waxaa jiri doona abaalmarino ayaga aan guddoonsiin doono gruubkii ku guuleysta barnaamijka dhibciisu ay bataan waxaana sheegi doona garsoorayaasha waxaa kaloo jiri doona abaalmarin ayagan aan sii doono qofkii gruubkiisa uu guuleysto oo muxuu ahaa gruubyada meesha ku tartamaya waxaa kaloo ayagana jiri doona hal su'aal oo aan dadka dhex dhigi doono qofkii ka jawaaba asagana abaalmarin baan sii doonaa
hadduu ilaahay idmo waxaan jeclaan lahaa marka dhanka samadoon inaa u leexdo miyaa la oran karaa maandooriyaha maaha mid dhib u geysta dhalinyarada ee waxaa lasku hilmaansiiyaa dhibaatooyinka ee qofka nifahantiisa ku dhaca aad buu u mahadsan yahay Faysal Casiir iyo dhammaan soo qaybgalayaasha xafladan iyo barnaamijkan ragga soo abaabulay iyo telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa ilaahina abuurtay halkan isugu kaaya keenay haddii aan su-aashaas jawaabteeda u guda galo waxaan oran karnaa maya lama oran karo wax la isku hilmaamiyo laakiin waa wax dhibaato isaga dadku u geysta haddii aan qodobo ugu galno dhanka caafimaadka marka koobaad dhibaato ka geystaa sida walaashay iga horeysaba ay soo sheegtay haddii aan ku sii daro inta u badan Soomaalida waxay isticmaashaa sigaarka iyo jaadka haddaan u guda galo wuxuu leeyahay labo maandooriye oo waaweyn oo la yiraahdo catin iyo catanon haddii aan dhawaaq qaldo haliga raali ahaado labadaas maandooriye waa laba maandooriye maskaxda wax dhibaato u geysta sidoo kale secretka midka la yiraahdo isagoona wuxuu keenaa dhibaato weyn sida kansarka ku dhaca sanbabada afka cunaha iyo hunguriga sidoo kale wuxuu dhibaato u geystaa qodobka labaad wuxuu dhibaato u geystaa cudurrada ku dhaca wadnaha iyo wareegga dhiigga qodobka saddexaad wuxuu dhibaato u geystaa maskaxda ayuu howlgab ka dhigaa dhanka secretka caafimaad ahaan marka loo eego sidoo kale wuxuu baabi'iyaa maandooriyuhu wuxuu dhibaato u geystaa qoyska jiritaankiisa waxaa ka mid ah inuu waalidku sameyn waayo waajibaadkii loogu talagalay ahaa gudashada xilkii la saaray oo ahaa inuu qoyskan maamulo inuu labo wuxuu sidoo kale u geystaa dhanka taranka sidoo kale waxaan maqli jiray abwaan oranaya Abshir Bacadle hadda ka hor wuxuu yiri qoys duma iyo qaylo iyo huruuf qaad oo adiga leh sidoo kale dhanka taranka markuu ka hadlayana wuxuu yiri qalbi qooqan qooraan wax tarin qaad oo adiga leh labadaas buu keenay dhanka markaan ka soo tago sidoo kale wuxuu dhibaato u geystaa in carruurtu ay waalidkood ku hadal celiyaan ama ay gacan u qaadaan sidoo kale dhaqaalahana wuu burburiyaa qofka qodobadaas oo dhanka qoyska wuxuu kaloo sidoo kale dhibaato u geystaa burburka nidaamyada jira haddii maamuladu iyo madaxda dawladaha ama dalalka ka jiraay ay cunaan muqaadaraadka waxay gabaan hawshii loogu talagalay inay fuliyaan waxay baaba u tahay waxay adii lahaa sidoo kale waxay burburka iyo baaba dawladnimo ama qabyaaladeed bay waxay u tahay asaas ama saldhig dagaalada sukeeye asaas u tahay waxay kaloo uu kalifaa maandooriyuhu lambarka saddexaad wuxuu kaloo kalifaa kufsiga dilka dhaca boobka inuu qofku ku kaco wuxuu kaloo qofka u geystaa qodobka xiga wuxuu u geystaa haddii aan u galno dhanka bini'aadanimada oo kale qofka bini'aadanka wuxuu ka lumiyaa xiriirkii u dhexeeya asaga iyo ilaahay oo wuxuu gabaa salaadihii inuu gafo inuu soomin oo kale inuusan ka xishoonin wax kasta oo loogu talagalay inuu ka xishoodo oo ilaahay xarigiisa halkaas ku gooyo wuxuu burburiyaa hantida maalka qofka bini'aadanka uu burburiyaa oo isagaa u baahan inaad hanti ku bixiso si aad hanti u hesho qodobkaasi wuxuu keenayaa inaad wax dhacdo inaad wax disho inaad wax soo boobto waana mahadsantihiin aad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahayn markaan dadka martida ah inaan ku leexano waliba aan ku hormarno dhanka gabdhaha gabadha mikrofoonka haysta ugu horreyn bal maxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku ay maandooriyaha adoo qodob iyo laba nooga xusaysid Assalamu alaykum dhamaantiin maandooriyaha horta waa dhibaato badan ayuu ku hayaa dalkeena iyo dhalinyarada Soomaaliyeed anoo u gudageleen adduun weynaha dhan dhibaatooyinka uu ku hayo hadda waqti xaadirkan aan hal iyo laba ka taaban karo ayaa waxay tahay qofka hadduu arday yahay uu maandooriyo isticmaalo taas waxay u keeni kartaa inuu studies-kiisa meel weyn uga dhacdo studies-kiisa qofka markii waxbarasho ama waxa loola damacsan yahay inuu horumar gaaro qofka hadduu muqaadaraad u isticmaalo waxaan aaminsanahay inay dhulka la gelayso midda labaad waxay tahay qofka waxay ku beertaa caasinimo si hore loogu soo sheegay oo wuxuu ka naxay ma jirto waalidkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhamaan wax alaal wuxuu daneenay ma jirto
muqaadaraadka marka waxaa aaminsanahay qofka maskaxdiisa dhibaato weyn ay u geysaa asoo xataa qofkii macquul inuusan ahayn qof xun ayaa waxay u jeedisaa dhanka xun waayo waa wax maskaxdeena dhibaatooyin badan fargeysta maadsan aad baa umahadsanta dhanka wiilasha weli waxaan jeclaan lahaa wiilka mikrofoonka haystaan aan ku hormaro bal fikirkii gabadha dabagal anoo fikirka gabadha dabagelaya dhibaatada ay ku hayso dhalinyarada qayila ama daraagiska isticmaala kow jir ahaan waa ay ka dilmanayaan maskax ahaanna waa ay ka dilmanayaan maxaa yeelay wax walba oo alla lagu xasuusanayo waa ay ka tegayaan waxaa laga yaabaa inuu maaragtay maantao dhan qaadkaas uu iska ag fadhiyo uusan shaqana aadin reerkiisa uusan ka warqabin dhibaatooyin badan oo kale inuu sameeyo markii uu qaadka waayo maskaxdiisa ayuu la dagaalamayaa qofka qaadka cuna midda kale xanuuno badan ayuu leeyahay qaadka iyo daraagiska maxaa yeelay mubadarinimada koowaad kow waxaa ka mid ah hantida iyo dhaqaalaha uu baabi'inayo iyo weliba maskaxda qofka uu baabi'inayo waxaa laga yaabaa maantao dhan inaad qayilaysid muustika aad kor u dheeraysatay aad u malaynaysid in maaragtay ninka adduunka ugu sareeya ama ugu fiican ama ugu firfircoon inaad tahay dhanka caafimaadka markaan u soo noqonno cudurro badan ayuu leeyahay qaadka maskaxda qofka bini'aadanka uu dilo kansar oo ku dhaca iyo weliba caloosha haddii oo maaragtay qofka qaadka uusan cuni aqoonin caloosha intay u gasho inay uburo ku noqoto camal oo markaas qaliin ha la aadiyo ama meel hebel ha la aadiyo la yidhaahdo aniga intaasaan kolleyba ku dari lahaa hayo kol raacsanay dhanka wiilasha wiilkaan hore u dhib wiilka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين dadka dhamaantiin waa in salaamayaa qaasatan telefishinka Somali Channel aad baan ugu mahadcelinahay horta baalkan laga hadlayo muqaddaraadku bikulliyan dhamaantiisu waa xaraan taas waa in lagu baraarugo marka qofku intuu sana caafimaadkiisa iyo dhaqaalihiisa arintaas fiirin horta xaraan baa cunaysaa wuxuusan ilaahay ka xareen baa cunaysaa waa qodob taas markii laga soo tago adiga midda kugu kooban dhaqaale ahaan buu ku dilahayaa qaasatan Nairobi arin dadka cuna dhalinyarta dhamaantood nolosha ka dhaceen waxma bartaan familkooda kan warqabaan jismigooda kan warqabaan dhogortooda dharkooda kan warqabaan qof walba kala intaas marqaato kiya marka dhalinyaradan isku timid oo arintan soo abaabushay isbahaysigan runtii aad baan ugu mahadcelinahay ayagana waxaan ku dhiirigelinayaa arintaas inaysan ka haarin annaguna hiliyo hoo waa garab taagan insha Allah taala si dadkeena arintaas looga wacyi geliyo waxaan kala ku darahayaa haddana xoogayr mowduuca ka dhinac maro oo in sayidka Soomaaliya bal arrimii ka soo dhacay su'aasna u dilay wadamada dariskaahi waxay ku quraan qaad iyo sigaar iyo lacagna way la soo baxaan qaadna way geeyaan aad iyo uma santahay wadani maandooriyaha miyo dhalinyarada Soomaaliya oo horseeda inay ku kacaan falka xun sida kufsiga iyo dhaca oo kale oo ku gadan lahaa maandooriyaha ama qontalyoonkiisa ama waxyaabo ka fara badan oo u baahan yahay saas ay u kala faysaa inuu fal tuugnimo ku kaco sida dhanka kale qodobka labaad qofka dhalinyarada ah hadduu saysan guri ku hoydo ama uusan lahayn xaas uu isticmaalo maandooriye waxay ku kala faysaa inuu xishood ka tago dan kufsi geysto Samadoon maandooriyaha miyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxay indhasaabaa inay ku kacaan falka xun sida kufsiga iyo dhaca oo kale su'aashu ah ma wuxuu adi dhibka iyo dhibaatooyinka haysato dhalinyarada miyo maandooriyaha ka indhasaabaa taas ana waxaan dhihi lahaa maya maxaa yeelay marka uu koowaad maandooriyaha asaga ayaa u horseeda falalka xun sida qodobkii koowaadaan ka hadlayo xishood darada waxaad arkaysaa nin weyn oo hadii 50 jir ama 60 jir ah oo suu qayliyay kaadi ay qabanayso banaanka yuliso istaagaya kaadidii ninkaas weynka jidka dhexdiisa ku kaadinaya maxaa ku kalifay maandooriyaha ayaa wuxuu tusayaa meeshan inuu ku kaadiyo culays ka hayo meeshan iska reebo ama waxaad arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo markii hadduu uu ka faa'iideysan lahaa dhalinyarinimadiisa oo horumarku noloshiisa gaarsiin lahaa balse oo qof walba uu arko shaxaadayo oo dhahay warahay 10 idhiyo siyaar ku gato noo idhib maanta xogaa wax aan ku gato marka kulli waxaan u maleynayaa taas oo ah inay dhibaatooyinka u weyn oo maandooriyaha uu leeyahay
qodobkayga labaad haddaan ka hadlo waxaa waaye qofka horumar la'aan ayuu dhigaa maxaa yeelay qofka waxaad arkaysaa waxbarasho ayaa loo soo dirayaa ama shaqo ayaa loo soo dirayaa waxbarashada ama shaqadii uu aadi lahaa ayuu seegayaa ama uu u gambinayaa oo suu u cuni lahaa bahalkaas taas oo ka reebaysa horumarkiisii beri inuu noqon lahaa laga yaabaa dhakhtar ama inuu noqon lahaa laga yaabaa madaxdii beri oo ubixi madaxdii beri u noqon lahay waddanka marka taasna waxaa u malaynayaa inuu horumar la'aan dhigayo qofka qodobkayga saddexaad haddaan ka hadlo waxaa waaye qofka inta uu cunayo maandooriyaha fikir la'aan ayuu dhigayaa maxaa yeelay ma fikirayo oo intuu maanta u fadhiista meel mustaqbalka maxaa noqon lahayd maxaa lagaa rabay maxaad adi inaad noqotid ama ku fiican tahay maantay bal waxbarasho aad ama meel aad oo nafsadaada waxtar ay masdhahayo maxaa yeelay marnaba kuma fikirayo inuu nafsadiisa wax taro ileen maankiisa ma joogay oo maanka oo maandoorsan yahay oo adduunkiisa dhanba wuxuu ku indhaseebay maandooriyahaas qodobkayga afaraad anoo ka hadlayo ayaa waxay tahay waxaad biilka guriga oo la cuno waxaad arkaysaa qof nin xaas leh biilkii ayuu soo qaaday maanta markuu biilka uu soo qaaday gurigii ayuu meeshuu gelin lahaa ayuu wuxuu la aadayaa inuu ku gato qaad ama sigaar ama maandooriye wuxuu ahaadaba inuu ku gato taas oo u kalifayso inuu biilka guriga ama caruurtii guriga uu ka bixin lahaa cuntadoodii ama hadday tahay waxbarasho iskuuleed ama hadday tahayba tii diiniyanba uu ka cunay asaga oo cunugiisii meeshaas uu horumarba uu ku gaari karin ileen asa ayaa ka cunay wixii uu ku bixin lahaa wiilkiisa oo wax ku baran lahaa qodobkayga shanaad haddaan ka hadlo waxay tahay aamin daro qofka cuna qaadka ama maandooriyaha oo dhan maba la aamino sidiisa bataatanba maxaa yeelay qof 24 hours qaad af ugu jiro ama sigaar cabayo ama qamre cabayo oo maankiisa aan jooginba saad ku aamintidbo kulley adiba waxaa arkaysaa qofkaas inuu marnaba aad aamini karin inta walaalka oo qaad cunaya inta aamini lahayd ama maankiisa doorsaneen waxaa inaa aaminta ayaa fiican qof kale ama wiil Soomaaliyeed oo wax soo bartay inaa aamintid oo aad lacagtaada maantidaada u dhiibatid qodobkayga shanaad haddaan ka hadla waxay tahay wuxuu ka reebaa qofka isdhexgalka bulshada taas oo keenaysa bulshada horsocod la'aan maxaa yeelay haddii maanta aad 24 hours qaadkaas cunaysid bulshadii kuma dhex jirtid horumarkii bulshada iyo waxay ka talinayaan ma ku dhex jirtid aad iyo aad waa mahadsan tahay liibaan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka wadani ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd inaad ugu baaqday dhalinyarada Soomaaliyeed hadda doonaysa inay isticmaalaan maandooriyaha iyo qabanqaabiyaasha dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhihi lahaa waxa ku kalifay inaan isticmaalo waxyaalaha maandooriyaha waa la cabsalaan haddii waa inaan ilaahay ka cabsanaa oo alla tala saarsanaa sidaas ayaan uga bixi karnaa maandooriye iyo waxyaalaha waxaan leeyahay tan kaleeto waxaan dhihi lahaa waa inay tagaan meelaha dhalinyarada lagu wacyi gelinayo midda kaleeto waxaan dhihi lahaa waa inay ka qayb qaataan goobaha waxbarashada si ay wax u bartaan ugana qayb qaataaneen wacyigelinta maandooriyaha waxaan kaloo ku dari lahaa waa inay xoogga saaraan xirfado shaqo iyo say u abuuri lahaayeen dhammaantood bixi karaan aad baa mahadsan tahay dhankaasay samadoon ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd inaad ugu baaqdeen dhalinyarada Soomaaliyeed hadda doonaysa inay isticmaalaan maandooriyaha waxaan aad iyo aad u salaamayaa marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ina abuurtay ayaa mahadle waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyaradan aad u quruxda badan la rag iyo dumarba barnaamijka nagala soo qayb gashay waxaan odhan lahaa su'aashayda haddaan u soo noqdo oo ku wacdi gelin lahaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada meel kastoo joogaanba inay ku cimro qaataan dhalinyaradii hore ama kuwa ka soo sheekaynay ama kuwa indhahooda ku arkaanba ha ahaatee jabka ay marayaan iyo dhibaatooyinka ay marayaan waxaan kaloon odhan lahaa inay waanooyinka ay qaataan sida aqoon-yahanada dhakhaatiirta culimo awdiinka qof kasta oo ka hadlaayaba inay waanooyinka ay u dhuun daloolaan oo ay qaataan baan u sheegi lahaa waxaan kaloon odhan lahaa diin ahaan wax u fiican maaha qaad ama darooga haddaan nidhaahno waxaan kaloon odhan lahaa wax u fiican maaha
caafimaad ahaan samcad darro dhinac kasta waa wax aan qurux badnayn oo la wada ogyahay dardaaranka ugu dambeeya oon u soo jeedin lahaa waxaan weeyay dhallinyarada inay naftooda u horumaraan oo u hoggaansanaadaan naftooda oy waxbartaan oy ku xisaabtamaan inay yihiin madaxdii berri mustaqbalkii berri raggii dalka maxay hoggaamin lahaa dhalinyaro markaan leenahay rag keliya xataa ma cunaan mararka qaar waxaa isticmaala haweenka isticmaala ragow dumar waa loo wada dhan yahay waxaan odhan lahaa kelmadeyda ugu dambaysa oon u baaqayaa inay mustaqbalkooda iyo ayahooga dambe ay ka fikiraan waxaan kaloon u baaqayaa ururada sida hadda ururkan nabadoon oo kale wacdigelin bay samaynayaan laga yaabo maanta intayna maqlayso in kalena maqli doonto ninkii nool wacdigelin baan u nahay waa u taagannahay ururada kale annaga nala midkoo kaleana inay meelo furaan wax la dhaho historiga qoyska in dib loo raaco aabihii hooyadii iyo waalidiintii ma cuni jireen draagiska haddii jawaabtu haadahay cunugiina waa cunaya waa la mid ayadana qodobka saddexaad aan ku daray waxaa ka mid ah environmentally deegaanka wuxuu qayb weyn ka qaataa micnaha in dhalinyaradu ay cunto draagiska ay isticmaasho sababtoo ah 95% deegaanka haddii laga cunayo draagis waxay sababayaa in qofkaasna uu ku biiro maxaa yeelay soomaalidu waxay tiraahdaa biyo kaa badan iyo dad kaa badan intaba waa ku harqayaan qodobka saddexaad aan gudbiyo waa maxay dhalinyaradu aqoon aan cilmi uma lahan waxyaalaha sababta effect gareeya draagiska sababtoo ah draagiskan waxa uu effect gareeya caafimaad ahaan qofka physical muuqaan ahaantiisa iyo mental ability-giisa awoodda maskaxeed uu leeyahay run ahaantii qodobka aan kusoo gabagabaynayo waa maxay qofka qaadka cuna ama draagiska physical change ahaan ayuu isku bedelayaa waxaa laga yaabaa cunug 20 jir ah in uu isku bedelo micnaha oldi ayada ama oldi uu noqonayaa qof weyn buu ka dhigayaa wixii ama wuxuu ka dhigay qof thin oo caata ah taasina waxay sababaysaa immunity-ga systemka jirka qofka bini'aadamka uu leeyahay waxa waaye uu effect gaynaysaa draagiska every cudur walba oo micnaha caalamka ka jirana uma adkeysan karo midda kale waxaan ku daraya waxa waaye horta waxaan ka yimid gobol dhaho mudug oo gaalkacay run ahaantii subaxii 5 saac baa waxa imaan jiray qaadka diyaaraduhu waxay imaan jireen 5 saac qaadkana waxa ka ganacsada hooyooyin imaamiyaal si ciyaalkooda uga raadiyaan micnaha anfacaad markay ciyaalkooda cuntada subaxii cuntada soo siiyaan iskoolaad ku soo diraan 5 saac ay u soo aadi jireen micnaha qaadka laakiin arintii waa la bedelo waxa way qaadka wuxuu imaadaa hadda 12 saac subaxnimo maamadii waxay ka soo tagtaa ciyaalkii ilmihii caruurta ayadoo ka soo tago waxba siin bay waxay soo aadaa qaadka effectiga weyn laftigeeda waa gaarsiiyay intaasaan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclaan lahaa guddiga garsoorka bal inaan u dhiibno markaan oo ay sheegaan kooxdii guusha ay raacday kadib waxaa jiri doona abaalmarino aan u hayno kooxaha guusha ay raacday waxa kaloo ayagana abaalmarin la qaadan doonaa qofkii taageeraha labadii qof hore aan u istaajinay qofkii taageeraha ee taageera groupka ay markaasi raacdo ayagana muxuu ahaa guusha bal waan arki doonaa dhibcaha waan sugi doonaa haddeerta waxaan u fadhinaa waa dhanka garsooryaasha waa cabdiqaadir iyo shariif iyo burhaan iimaan adinka ayaan idinka sugaya markaa bismillaah أنا واحد أقول فرحتنا لبضع كوحات ويدا دالين سمعنا واحد هنا عبدنا قرله علينا قرله وحلو قصبيه إن القلاء يبدأ مركا لبضع كوحات لكن أدو دالين وكفر فرحتنا بنت جودة إن نجدده وكفر فرحتنا هاي أدو وعي كشيهن أدو فانسين وحيالا يكهلا يعني marka dhibcaha waxaan ugu sheegi doonaa saaxiibkay laakiin ana waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dhamaantood saaxiibada way dadaaleen laakiin qoladii laga raaya ha qaadato guusha qolada kale ha u mahad celido yees ku bilaabeen miisas iyo kuraas si Soomaali lagu yaqaan Soomaali waa dagaalamo marka laga badiyo thank you so much bismillaahir rahmaanir rahiim ana ku bilaabaya horta intaana bilaabin kooxdii ma aragtay guusha qaadatay mise tii ma aragtay laga reeyay horta waxyaalo badan ayaa maanta ma aragtay ku wacyigelin dhalinyarada mise ma aragtay ee miiska soo saareen hadii aan dhaha pointyaal aad u wacanay wateen sidaba ma aragtay hadda arrinta laga hadlay oo kale waxay noo sheegeen in mandooriyaha uu yahay mid qoyska burburiya ma aragtay waxa kale oo ay noo sheegeen waxyaalo badan markay imaata health implication sida importance oo kale sida throat cancer camal yani ma aragtay inuu dhibaatooyin aad u weyn ay la xiriiraan teeda kale waxay noo sheegeen in ninka dhalinyarada ah يعني ما ركتي ambitions كيسي يا dreams كيسي أي كدليس سيد أخرس كادي بربر أكون عايز سمان مركتن إذا هرت آدي أو ما تسنجهين وحديه لا دن لياذا إني ما ركتي أي كفير سدان وحيالات أي جلا يعني مثل ما ركتي سيد peer pressure أو كله أي سنو جلين هبل السمايا
asagaa nin rag ah ee aniga maxaa u sameyn waay camal tan iyada ah ficil waxaan ka ficil qaadanaa waxyaalada wanaagsan aysan ahaanin waxyaalada ma aragtaaye sida hadda maandooriyaha iyo waxaas aan iskaga dayan laakiin arrimaha fiican kulli aan ooga dayana sababtoo ah dhakhaatiirta berrito adinka ma aragtaaye abukaatayaalkii lawyers engineers waddankeennii u baahan yahay dhallinyarada hadda joogta soo maahan haddii waqtigaa aad ku burburisa waxyaala aan ma aragtaaye loo joogin ka waran marka tan iyada ah ayaan dhehi lahaa okay haddii aan usoo noqdo dhinaca kale maanta waxaa qaateen guusha maxaa la dhahay samadoon ayaa winnerska ah oo 70% wadanina 53% oo labada dhinacba way dadaaleen teeda kale waxaan ku darnay qayb kale Facebook of which maxaa la dhahay samadoon waa very active actually marka I still encourage all other youths to do the same and also tan iyada ha ooga daydaan aad u mahadsantihiin qabanqaabiyaalka barnaamijka iyo TV-da channelka Soomaaliya aad u mahadsantihiin thank you very much aad ay u mahadsanyihiin guddiga garsoorka sida ay u soo gudbiyeen fariinta laakiin guusha labadiina waa inay raacday ma aha mid hal dhinac kaliya raacday muhiimadda barnaamijka ayaa waxa ay ahayd inaan message u gudbino dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan waliba ku hadeertan isticmaal maandooriyaha waxaa jiri doona abaalmarino oo la sii doono gruubka guuleystay oo samadoon team ah balse intaan u gudagelin su'aalahaas waxaan jeclaan lahaa labada qof hadaati ballanka aan lahayn ee meesha ku jirto gudaha fadhiday hal qof ka mid inay saagto xood istaag أول يا تاجريسي سمدون ويبدي ينصبان سفيان هي ما حد فينا سيران كسينا مرك مسؤول بنك ويدينا مسابقة كسينا ولا سيدي نيجو هبون بل سيدا وفر عصاتنا جروب كتاجريس هدي أي محوها أي شيء بديان أوكي وحم فيلنين فست وحنا وين ربي إن جروب كي بديان وايو وحقيقي جرو قفان فاينل كيفيسون إسلامانه marka samadoon meel weyn iga taalaaso ani ilaa hadda waxa codsanayo male halaas ay aad baa ma santa waxaan jeclaan lahayn shopping-kaaga inaan ku siino nukumad aad marka waxay soo istaagay ma san wala maanta barnaamijka ma yara waxay keeneen nabadoon shopping bidii u sameynayaan dadkii marka waxaan jeclaan lahayn shopping-keeda aan siino nukumad aad waa nukumad qofkii mutesta la sii doonaa waxaan sugaynaa labadii qof hadaata ayagana aan ku balannay su'aalaha qofka ugu horeeya inuu istaago labadii qof aan su'aalaha ku balannay gabadha inay istaagto su'aal baan ku weydiinayaa ma taqaanaa wadani maxaa la yidhahdaa wadani ma taqaanaa wadani oo siitisan camal ودن أو ودن كنا عملناه سيتي سوايا قف ودن يا عمل aad baa maasantahay fariiso oo maasantahay wiilkii dad asagana balanta aan lahayn ma taqaanaa wadani wadani waa urur dhalinyaro oo wacyi Soomaaliyeed oo ka wacyi galiya xaq dhan kale aan dilo eego waa qof wadaniya oo wadaniyad waxa la dhahaa wixii qofkii wadani aad adigu wadani waa loo dhashay wadani testi aad baa ma santa fariiso qofka wiilka ugu dhib mikrofoonka wax yar ma taqaanaa wadani waa qofka kaliya jacayl wadankiisa marka wadani waxyaabo badan ay leedahay laakiin waa qofka dhab u jecel wadankiisa kana naxa wadankiisa waxyaabaha xumaanta ahayn waxaan jeclaan lahaa qofka anigoo dhan waa saxday inaan loo socbin istaag wax yar su'aashu way socotaa wali fariiso marka ku dhan ayaa fariisanaysaa adigu ma tahay wadani si wacan maxaad ku tahay wadani by nationality wadani aad baa maasan tahay wiilka hore igu dhib su'aashaas qofkii ku guuleysta jawaabteeda asagana nukumaad baan u diri doonaa istaag بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن سؤال شاسكو ديو ودني وحواي وقف كو أبورن قلبي كيسا ودن كيسا يدد كيسا يدل كيسا يدين تيسا انتوا سوء وقارسين لها هرمر وغانا صار لها لبات مر ربنا
ku jeclaan lahaa horumarka iyo ula qaybsadaa caalamka oo idil taasaan kusoo gabagabayna wadani waa haa wadani waxaan ku ahay in aan waddankayga la jeclaado wax walba oo horumar ah oo gaari karo inaan la jeclaado dhinac walba ha noqoto siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto waxbarasho ha noqoto dhinac walba ay noqoto la jecel waddankiisa inuu horumar gaaro maxaad ku cadeyn kartaa inaad tahay adigu wadani hadda ma sheegi karo macnaha qofka wadanimo waxay uga jidhaa qalbiga uga jidhaa maahan mid ka muuqata fiisika ahaan qofka banaadinka waxa waa mid qalbiga qofka banaadinka ku jidha marka nima cadeyn kara hadda macnaha waxyaalahaasaan ku noqon laakiinse waxa waaye waa mid aniga igu abuuran qalbi ahaantii aad baa maasan tahay wiilka gadaal fadhiya geeska gacanta taagaya istaag adiga istaag gadaal fiirinaysa istaag haye waas ma taqaanaa wadani wadani waa shakhsiga dalkiisa diintiisa wax walba oo horumar ah la jecel dhib kasta oo u yimaado waddankana iyo diintana la qaybsado haddii aad taqaanid adigu ma tahay wadani maxaad ku cadeyn kartaa inaad tahay wadani waxaan ku cadeyn karaa dhib walba oo waddanka ku yimaada waa la xanuunsadaa waxaana jeclahay waddanku inuu mar walba la nabad noqdo dalka iyo diintana waxaan jeclahay inaan naftayda iyo dhiiggayga iyo maalkayga u huro haddii aad tahay wadani maxaa kugu qasbay inaad dalka shay joogtay ma wanaagsan inaad waddankaaga ka qabsatid okay thank you waxaan waddankan u imid adduunka waddanku Soomaaliya waa burbursan yahay waxa waddankan igu qasbay inaan joogo caafimaad baan u imid haddii caafimaadkaygu hagaagana waddankayga ku laaban doonaa insha Allah ta'ala haddii Ilaahay raalli ka noqdo aad baa maasan tahay waan ku sii doonaa intii marka waad mutaysatay شوبني نكمل باودرين واحد كلام وانت هذيك ورالي هذا سؤال كله كوجود درناكور أدبو ما سنتاي waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkii dhalinyarada ee TV-ga Soomaali Channel kala soo jirteen ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa Samadoon ay ku guuleystay tartanka asaga in aan siino abaalmarintiisa shantiin wax yar saan isku soo feelo waxaan jeclaan lahayn abaalmarinta Samadoon inuu guddoonsiiyo xogayaha guud ee ururka dhalinyarada Nabadoon Youth Alliance oo ah ururkii suurtageliyay inuu barnaamijkan uu qabsoomo oo kaalinta weyn ka qaatay waa Maxamed Wali haye qof ugu horeey u dhiib nakumaad baa la aadayaa shoobinkuna waa diyaar tartankan wuxuu socod doonaa ilaa iyo 4 usbuuc waxaana ka qayb gali doonaa guruubyada Samadoon Wadani Golden iyo Iskaashato waxa maanta foodeys daray labada guruub oo ah Samadoon iyo Wadani waxay guusha ay raacday sidii garsoorka ay noo sheegeen Samadoon waxaan sugi doonaa marka waxa Soomaalidu xidhada fardal isku hayo la iskuma faasho waa Golden iyo Iskaashato ay qofka xiga anigana maxaan qaadanayaa marka waxaan kun iyo kow jeer u mahad celinaynaa ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Nabadoon Youth Alliance oo barnaamijkan inuu qabsoomo suurtageliyay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa marti sharaftii iyo dhalinyaradii ka qayb qaadatay tartankan iyo kuwa ka qayb qaadan doona intuu socod doono intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkii dhalinyarada toddobaadkiiba hal jeer in kaga imaan jiray TV-ga Soomaali Channel studio ku leeyahay magaalada Nairobi waxa barnaamijkan idin daadihinaya anigoo ah Faysal Caseer dhanka kaameraduna waa farsamayaqaankii faraha fududaha TV-ga Soomaali Channel Cabdiraxiin Darbo iyo Ibrahim Maxamuud Jaamac waa anigoo ah Faysal Caseer inta barnaamijka banaashir mid ku kulmi doono isma dhaafno nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiiya walaalayaalo hurdaayo toos Soomaali